xisbiga haya talada jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Soomaaliland ee kulmiye waxa ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbigooda taasoo isaguna uu ku gacan sayray faahfaahin warkaasi ku saabsan waxa goor dhaweyd magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha iyaga Axmed Saciid Cige gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye Axmed Cabdi Dheeraha ayaa maanta waxa uu sheegay in guddiga fulinta xisbigaasi aqlabiyadoodu fadhi ay ku yeesheen maanta xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa ay go'aamiyeen in Jaamac Ismaaciil Cige oo ahaa gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga talada haya ee kulmiye laga bilaabo maanta laga qaaday xilkii gudoomiyenimada golaha dhexe iyo xilkii xubinnimada golaha dhexe xisbiga kulmiye gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya kulmiye Axmed Cabdi Dheeraha waxa uu sheegay in Jaamac Ismaaciil Cige Jaamac Shabeel gudoomiyihii golaha dhexe xisbigaasi uu ka hor yimi sidoo hadalka u dhigay siyaasadda iyo xeerka xisbiga isagoo ku kacay buu abaabul iyo kicin ka dhan ah siyaasadda xisbiga iyo xukuumadda uu ka tirsan yahay isagoo adeegsaday marar badan warbaahinta oo eedeyma u soo jeediyay xukuumadda iyo xisbigaba dhinaca kalena Jaamac Ismaaciil Cige Jaamac Shabeel wuxuu sheegay in xilka qaadistiisu aanay sharci ahayn in jagada gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ay bannaan tahay oo aan weli la dooran xisbiguna aanu ansixinba Axmed Cabdi Dheere sidaasi daraadeed iyadoo oo dalka ay joogaan gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga talada haya kulmiye aanu sharci u lahayn in uu gudoomiye ku-xigeenka labaad uu isugu yeero xubnaha guddiga fulinta oo isla mar ahaantaasina go'aam ay qaataan Jaamac Shabeel waxa uu kale oo uu sheegay in golaha dhexe ay tahay hay'adda ugu sarreysa ee xisbiga oo ay ka sarreyso guddiga fulinta isla mar ahaantaasina isaga lagu doortay Congress sidaasi daraadeed sidoo hadalka u dhigay in qeyru sharci ay tahay xilka qaadistiisu wuxuu sheegay in uu faahfaahin bixin doono wixii hadda ka dambeeya Axmed Saciid Cige BBC Hargeysa